Waxaa jiray nin boqor ah, gabdho mahane wax wiil ah ma uusan dhalin. Maxaa yeelay wiil kasta oo dhalo waa uu dili jiray. Sababta u dili jiray waxay ahayd faalshow ayaa waxa uu ku yiraahday adiga aakhirkaaga waxaa ku dili doono wiil aad dhashay. Sidaas la ajligeed ayuu wiilashii uu dhalaba u dhashaba u dili jiray. Wasiiradii iyo dadkii ka agdhawaana waxay kula taliyeen in uusan ilmaha iska layn uuna rumaysan faalshowga warkiisii. Laakiin cidna war kale kama uusan yeelin, kalamana uusan tashan jirin, ooyinta xaasaskiisana kama uusan nixi jirin. Sidaas la ajligeed ayaa magaaladii waxaa lagu bixiyey magaaladii Saqiiradlayska. Halka aad nagala socotaan waa hoyga qisooyinka ee Toosiya Channel. Fadlan subscribe adiga wax ku dhibi mayso, annagana waxaan ka helaynaa dhiirigelin insha Allah. Dadkii magaalada waxay ku noqotay arrin aad iyo aad u xabsi badan, waxayna la carareen carruurtoodii dhammaan. Ilaa ninkii ilmihiisa laynayo ilmo kale u nixi maayo. Magaaladiina waxay noqotay carruur la'aan. Boqorkii waxay ku abuurtay murugo, laakiin isagoo waxa u darnaa kursigiisa in uu ilaashado cid in ay kala naqaashto ogolaana ma leh. Dabeecaddiisana maalinba maalinta ka dambeyso way sii xumaanaysay ilaa ay ka kala carareen xaasaskiisii. Waxa uu guursaday kadib islaan addoontiisa ahayd, waxayna yeelatay uur. Uurkii ayay la murugootay. Haddaa wiil dhasho maxaa samayn doontaa? Islaan waayeel ah oo qasri ka shaqaynaysa ayaa waxay ku tiraaday ha murugoonin, wiil haddii aad dhashid aniga kaxayn doono, baadiyaan geynayaa, waana soo tarbiyeynayaa. Ayadoo arrintii taagan tahay ayay waxay dhashay wiil. Islaantii waayeelka ahayd wiilkii daaweyn ayay siisay oo ka dhigaysay inuu suuxay. Boqorkiina markii uu soo noqday waxaa loo dhiibay wiilkii oo nuuxsanayn. Waxaa la yiraahday wiilkii waxa uu dhashay asagoo meyd ah. Waxa uu fiirshay wiilkii qabaar kor u hayay. Fiican tahay haddii aniga uu soo gaarinba aad iska dhimatay. Waxa uuna amray in la aaso. Kadib islaantii waayeelka ahayd wiilkii waxay ula tagtay baadiye. Aad iyo aad ayay u tababartay, training fiican ayay siisay fallaaraha, wuxuuna ku soo baxay isagana wiil geesi ah. Kadibna waxay u sheekaysay wixii dhex maray hooyadiis iyo aabihiis iyo boqorka in uu asaga dhalay. Wiilkiina wuxuu yiraahday waxaan aadayaa boqorka si aan ula kulmo, laakiin waxay u sheekaysay ka tagtoonow waa inuu ku dilo ayaan ka baqayaa. Dhibaatadaas ayaana lagula soo cararay. Laakiin wiilkii wuxuu ku adkaystay inuu baxo oo aabihiis la kulmo. Markii uu tagay oo la kulmay oo la sheekaysay wana sheekaysidii hooyadiis u badbaadisay oo cudur daaray inay iska cafiso asagana soo dhaweyso. Laakiin boqorkii arrintii aad iyo aad ayay cabsi u abuurtay. Markii uu ogaaday wiilkan wiil geesi oo inuu yahay, wuxuuna u wacay askartiisii. Wiilkii oo dareemay in aan la cafinin ayaa meesha ka dhuuntay. Hooyadiis u tagay hooyo wuxuu yiri nacarsi waxaan u maleynayaa aabuuna dili doonaa. Hooyadiina waxay tiraaday nasaar faraskan oo nagu qari. Waxayna aadeen dhanka albaabka inay ka baxaan. Boqorkiina wuxuu amray in albaabada dhan la xiro, laakiin faraskii waxay gaartayba albaabkii. Askartii meesha joogay oo aad iyo aad u xumaa boqorka sidoo carruurta u laayo ayaa iska fasaxay dhahay horay u socda ay nafsidiina badbaadiya. Waxay tageen suuqii, waxa ayna ka tageen faraskii ayay ka tageen. Kadibna waxa ay bilaabeen in ay lugeeyaan baadiye xaggeeda u lugeeyaan ayagoo ka cararayo askartii oo soo diray boqorka in ay soo qabtaan. 10 maalin iyo 10 habeen ayay sii lugeynayeen. Maalinkii dambe waxay ku soo baxeen guri aad iyo aad u weyn oo qasri ah oo ku yaallo meel saxaro ah. Albaabkii ayay garaaceen oo waxay yiraahdeen yaa joogo, cidna lama aysan hadlin. Albaabkii ayaa laga furay, gudaha hadday galeenna cid joogta ma lahan. Meelaha ayay wareegeen, cidna ma joogto. Wuxuu yiraahday anaga musaafir ayaan nahay, waana baahan nahay, waxaa cunana siiya, haddaana siisiin lacag ayaa idinku bedelaynaa. Dhex wareegay qasrigii asaga oo raadinaya qof joogo. Cabaar kadib wuxuu arkay miiskii oo raashin la soo saaray. Wuxuu bilaabay raashinkii inuu cuno. Hooyadiina waxay fiirinaysay dhinacyada ayadoo aad iyo aad u murugaysan. Raashinkii ayay cuneen, kadibna lacag ayay miiska saareen. Meeshiina waxay sii joogeen 2 maalin oo subaxdiina loo keenayay raashin quraac, habeenkiina casho aad iyo aad u macaan. Si kasta haddii u dhex wareegeen gurigiina way arki waayeen qof jooga ama qof ay la kulmaan. Waana nadiif meel walba oo waad arkaysaa guriga in nagu leeyahay la nadiifinayo. Way iswareysteen wiilkii iyo hooyadiis. Hooyadii dhahday gurigan waxa u maleynaya waxa ku nool dad aad iyo aad u wanaagsan. Raashin ayayna siiyaan, miiska lacagtan saarana ma ay qaataan. Isaga tagno intii aysan jaariyada ama adeegtan inta nala soo diro la dhihin noo baneeya meesha. Wiilkii hooyadii ayaa tiraaday waayahay haddii aan baxno
adiga xifrad aad ku shaqaysatid ma haysad ma lihid, lacag nagu filanna ma hayno. Wiilkiina wuxuu yidhahday seefyahan ayaa dagaalyahan, seefta ayaa ku dagaalama yaqaanaa. Hooyadiin waxay tidhaahday, ma waddadii aabbaha ayaad raacday oo seef inaad wax ku caburisid? Waxaas naga dhaaf. Waxa adduunyada ku wanaagsan tahay in nabad nagu noolaado. Muddo ayay gurigii joogeen ilaa wax ay la kulmeenna ma lahan. Wiilkii ayaa habeen jiif ayaa soo baraarugay. Wuxuu arkay gabar, isla markiina way ka midhahday. Wuxuu yidhaahday, Mariya mise waa run. Hurdadiisii ayuu sii watay. Haddana wuxuu dareemay sharqaanta soo kacay. Waxa uu arkay gabar ag taagan. Wuxuu ula hadlay, ha iga cararin, waad iga ammaan helaysaa. Tuma ahayd, laakiin mugdigii ayay uga dhex dhuumatay. Waagii markuu mariyey miiskii quraacda ayagoo fadhiyo, wuxuuba arkay gabadhii agtiis taagan. Waa u wacay, noo imow ayuu ku dhahay. Hooyadiin waxay tiri, gabadhaydii noo imow, waa naga ammaan helaysaa, magangelyada alla noogu imow. Way u timaatay, way isbarteen, wayna iswareysteen. Wiilkii ayaa ku yidhaahday, waxaad ku nooshahay gurigan aadka u weyn qasriga, ma keligaa ayaa ku nool, aaway ehelkaagii? Waxay tidhaahday, keligay ayaa ku nool, ehelkaygana ma joogo. Waxay sidee wax u jiraan? Waxay tidhaahday, aniga waxay dhalay aabba taajir ah. Aabbahii wuxuu ahaa nin taajir ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay u baxeen aabbahii iyo walaalkay safar ayay aadeen. Nin harqaanla ah ayuu aabbahii la ballamay oo wuxuu yidhaahday, gabadhayda inta aan maqanahay maalin walba waa in aad raashinka iyo waxay jeceshahay u geysaa. Markuu dhowr maalin igu soo noqday ayaa harqaanlihii ii jeclaaday. Wuxuuna ii soo bandhigay nafsadiisii, anna waa diiday. Wuxuu yidhaahday, waayahay, waxaa balana markuu aabbaha imaado in aan kugu diro, wuxuuna amri doonaa in lagu dilo. Anna waxaan ku dhahay, sida aad jeceshahay samey, dib dambana ha igu soo noqon. Yartii addoonkii noo joogay ama addoontii noo joogtay ayaa ii soo khidmayn jirtay oo wax ii keeni jiray. Kadibna ninkii harqaanlihii wuxuu maqlay aabbahii in uu soo noqday. Waxa uu ka hortagay bannaankii. Wuxuuna u dhahay, gabadhaadii sumcad ma hayso. Markaa maqnayd addoommada ayay ku dhex jirtay, waana ila tuman jirtay. Aabbihiina wuu xanaaqay. Wiilkii ayuu la hadlay. Wuxuu yidhi, waxaan rabaa intaan magaalada soo gelin gabadhaas inaan ugu imaado. Ka bixi guriga oo kaxay oo saxaraha gey oo meelahaas ku soo dil. Yaan kula kulmin, wejigeedana ku arkin magaalada. Walaalkay ayaa ii imaaday. Sharqantii markaa maqlay aad iyo aad ayaan farxay, waan ku soo orday. Laakiin markii aabba lama u socon. Wuxuu yidhaahday, soo bax, aabba ayaan ka hortagaynay. Wuu soo waday. Wuxuu i keenay meel saxara ah. Markaasuu yidhaahday, sidee walaashay wax u jiraan? Maxaa adiga ninka harqaanla ahaa idin dhex maray? Waxay tii, ninka harqaanlaha intaa maqnaydeen dhowr maalmo soo noqday ayuu i damcay, anna waan diiday. Wuxuuna igu handaday inuu aabba igu diri doono. Laakiin walaalkay wuxuu yidhaahday, arrintii sidii wax u jireen ayuu ii sheegay. Waxaan u malaynayaa in adiga aad run sheegaysid oo harqaanlahaas uu kaa gardaran yahay. Sababtoo aabbaheen wuxuu nagu koriyay tarbiyo wanaagsan iyo akhlaaq fiican iyo run. Laakiin aniga midna ma khilaafi karo balantii aabbahey. Anna waxaan ku dhahay, walaalkay, sidii aad jeceshahay sameey. Haddaad rabtid oofi ballantii aabbe, haddaad rabtidna i nabadgeli. Meel saxara ayuu keenay. Walaashaydii kuma dilayo aniga, ee meeshaada ku noolow ayuu dhahay. Wuuna iga tegey. Waan socday ilaa cabbaar. Markaan socday wax i caawiye ayaan waayey. Oon ayaan la dhacay. Waa miir beelay. Markaan soo naaxay waxaaba arkay islaan waayeela oo ari wadata oo ay kor joogto. Way soo waday. Waxayna keentay gurigan weyn oo qasriga ah. Keligeed ayaa ku nooleed markii ilmaheedii dhammaan ay ka kala tageen. Arigeeda ayayna raaci jirtay. In muddo ah markii aan la noolaa oo islaantii waayeelka ahayd ayay geeriyootay. Aniga iyo qasrigan weyn iyo ari tiro badan ayaa isku soo harnay. Arigaas ayaan raacay jiray. Ariga waxay ka wanaagsan yihiin dadka oo ariga kuma qiyaamayaan. Sanooyinkii ayaa iskuray. Had iyo jeer waxaan ka murgoon jiray aabbahey iyo walaalkay. Maalinkii dambe idinka ayaaba gurigan soo galay. Marka kor ayaa idinka laxusanayay. Haddana waxa ogaa dhibaatadii oo i soo gaarsiiyey harqaanlihii. Saas ayaa idinkaga dhudhuumanayay. Adiga xaalkaaga siduu yahay? Xagee ka imaateen? Xageen u socteen? Wiilkii waxa uu sheekayay taariikhdii dhex martay asagii aabihiis. Inuu aabihiis layn jiray wiil kasta ee u dhasho. Asagana oo Ilaahay ku badbaadiyey markii hooyadiis ay la dhuumatay. Islaantii waayeelka ay soo korisay. Aabihiis markii uu ku noqdayna amray in la xiro. Sidaasna ay ku soo carareen
iskuna imaadeen meeshaan. Gabadhiina way faraxday, waxay tiraaday waan isku qisa dhownahay, ha iskula noolaano meeshaan. Muddo markii wada joogeen ayay labadoodii isjeclaadeen, midba midka kale jeclaaday. Wiilkii ayaa gabadhii wax u soo bandhigay inuu guursado. Way ka yeeshay, laakiin shardi waa in aabbahay i kaa siiyaa. Wiilkiina waxa uu raadiyey taajirkii si uu weydiista gabadhii. Taajirkii markii uu la kulmayna wuxuu yidhaahday waxaan rabaa inaa ii guurisid gabadhaada. Taajirkii ayaa ku yidhaahday aniga gabar iimaba joogtaba. Wuxuu yidhaahday gabadhii harqaanlihii aa uga tagtay iyo dulmkii harqaanlihii uga sheekeeyey. Intii uga sheekeynayay ayaa harqaanlihii dukaankiisii gubtay, asagana waa ku dhex jiray. Si kasta intii la yeelay ayaa la badbaadin waayey. Markuu arkay inuusan badbaadin oo dhimanayn oo dadka badbaadinaya taajirka ku jiray, ayuu la hadlay taajirkii una yidhi taajirow, gabadhaadi waxay ahayd gabar wanaagsan oo shariifad ah, macsina ma aysan aqoon. Aniga ayaa dulmiyey, maantana dulmigii ayadaan dulmiyey ayaa dhibkaan kula kulmay. Taajirkii dadkii dhan waa yaabeen, wayna ka murugoodeen ninka warka uu ku hadlayo, sababtoo waxay ku yaqaaniin runlow ah oo ammaano ah. Kadibna taajirkii wiilkii wuxuu ka codsaday in uu la kulansiiyo gabadhiisii, wuxuuna soo waday, wuxuuna u keenay gabadhii. Gabadhii markay aragtay aabbaheed aad iyo aad ayay u faraxday, wayna ilmeysay. Taajirkiina wuxuu ka tirtiray ilintii asagoo dhahayo gabadhaydii dambi ayaan kaa galay, iska kay cafiyey. Ayadana waxay tiraahday aabbo, haddii mar aan ku arkay adigoo i cafiyey ama ijecelba, intaas ayaa igu filan. Wuxuu yidhaahday waxaa igu balana inaan ku guuriyo wiilkii akhbaartaada ii keenay. Kadibna wiilkii ayuu wareysay oo wuxuu yidhi wiilow, gabadhaan ku siiye adiga intay ka soo jeedaa, aabbaha waa kuma? Wuxuu sheegay ina suldaan inuu yahay oona dhalay boqorkii. Wuxuu yidhaahday boqorkii ahaa, aniga boqorkii wuu dhintay, hal wiil ayuu ka tegay iyo 4 gabdhood. Wiilkiina asagoo ka cararay wuxuuna ku dardaarmay wiilkiisa in la raadiyo kursigana lagu wareejiyo, ee soo bax meeshaan ku geeyey, meel aan lagaa raadin ma lahan. oo ciidamadii boqorka iyo wasiiradii dhan adiga ay ku raadinayeen. Wiilkiina wuxuu ku noqday qasrigii aabihiis asaga oo la sugayo laguna faraxsan yahay soo noqoshadiisii. Halkaas ayuuna xilkii kula wareegay gabadhii taajirkana oo ku guursaday magaaladiina uga noqday suldaankii magaalada. Wixii uu qalad aabihiis magaalada ka galayna asaga ayaa dhammaystiray. Wixii caruur ahaa waxaa lagu soo celshay magaalooyinkii cabsi la'aan, wuxuuna noqday suldaan dadku dhan wada jecel yihiin una roon. halkaas ayaan ku kala tegaynaa. qisadeennana ay maanta ku idlaatay. waa inoo qiso kale oo muhiim ah. adnaha naga ilaabin subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.